السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مقال كافراد امتحانين Adobe Premiere Pro. maanta waxaan qaadanaynaa xogeen transitions. magacaygu waa Jiftaax Maxamuud. channelka daawanaysa Sulb Graphics. fadlan haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir, subscribe saar, gambalelka digniintana furo si aan casharada kugu dhaafin mar walba aan cashar cusub soo gelinin oo hore kugu soo gaadho. waxaa jira laba nooc oo transitions ah. mid waa video transitions, midna waa audio transitions. marka inagu waxaan qaadanaynaa waxa weeyaan video transitions. marka horeysa waxaan doonaynaa in isla faahno bal muxuu noo qabanaya transitionku. marka hore muxuu noo qabanaya ama maxaan uga baahanahay haddii aan imka muuqaalkayga play dhahdo oo aad arkayso markasta oo uu gaadho meel uu muuqaalku ka go'an yahay uu boodaya muuqaalkaygu, ama waad dareemi kartaa in muuqaalku go'an yahay oo kad boodhanaya markuu gaadho meeshii uu ka go'ana. marka waxaan doonaynaa intaa yar inaan ka saarno inagoo isticmaalayna transitions ama video transitions. marka horeysa waxaa u baahan tahay editing tabka inaad joogto. mar walbana waxaa isku daydaa inaad editing tabka joogto markaad doonayso inaad editing wax ku saabsan samayso. marka waxaan doonayaa inaan ku tuso haddaba qaabkee ayaad usoo gashanaysaa transitionski. iminka halkan haddii aad arkayso projectigu igu yaallo librarieska history ka muuqdaan ama panelkan halkan noo yaalla ee muuqaalka laga soo gashado. haddii aad doonayso inaad transition soo gashato marka horeysa halkaa drop down ka baa taabanaysaa, kadib halkaas aad tegaysaa effects ku qoran tahay, halkana laga soo gashadaa. marka waxaan u baahannahay marka horeysa meeshan inaan iska kilin karayno ama aan taababkan kale aynaan u baahnayn iska saarno si ay noogu fududaato inaan si fudud usoo gashano transitionadii. marka haddii aad u baahantahay inaad iska saarto paneliskan waxaad samaynaysaa inaad marketer tagto, kadib halkaas saddexda link ku taalo aad click taabato, kadib aad close panel ayar tiraahdo. kuwa kale oo dhan aad nooca ayar u saarto, historygan aan iska saarno. marka saa isaga wada saarto mararka qaar waxaa laga yaabaa inay kaa raacdo effect lifteedu oo aad ayar close panel tiraahdo adoo tu kala saar isle. marka haddii ay sidaa kaaga baxdo wax dhiba ma lehe, waxaad tegaysaa ayar baa windows tegaysaa, kadib hoos baa soconaysaa effect controlka haddii aad ka hoos arkayso effects baa ku taala, ama waxaad taaban kartaa shift plus number 7. marka ayar baan effects taabanaya halkeedii bay kusoo noqonaysaa. marka qaabka aad usoo gashanayso transitions waxa weeyaan haddii aad halkan arkayso waxaa yaala drop down fara badan: presets, lumetri presets, audio effects, audio transition kuwa video effects baa ku xiga iyo video transitions. marka video transitions kaas aad soo furanaysaa in yar baad hoos soconaysaa, waxaan oo dhan waa video transitions. intanun maaha mid kasta in dhowr baa ku hoos jira aad isticmaali karto. marka inagu waxaan maanta doonayaan kugu tuso horta marka horeysa dissolve-ka ama sida loo isticmaalo dissolve transition-ka. marka waxaad samaynaynaa marka horeysa halkaasaan doonaya inaan transition soo gashado ayar click baan leeyahay anoo markaa muuska xijinaya waxaan samaynaya inaan soo jiido aan saa u dul keeno. haddii aad arkayso marka aan dul keeno waxaa dul yimiday transition oo labada videoga aan dul taaganahay halku ka kala go'an dusheeda ayuu videoga dhinacay raacay. waxaan samayn karaa inaan dhinac qura kaga daro transitionka muuqaal kaliya aan dhinac ka soo geliyo ama inaan kan dhinacan kaga daro, laakiin badanka waxaa la isticmaalaa waxa weeyaan in labada muuqaal dhexdooda la dhigo si labada muuqaalba uu midba dhinaca uga jiro. markaan saa usii daayo transitionka ugu jiraa. haddii aan zoom idhaahdo haddii aad arkayso halkaa waxaa noogu qoran cross dissolve, waa kii aan soo qaadanay. halkana waxaa ku qoran cross dissolve. marka saasaa usoo gashanaysaa. haddii aan ku tuso markaa transitionkii wuxuu inoo taray halkan markaad timaado haddii aad click tiraahdo aan play gareeyo, haddii aad arkayso labada muuqaal isdhexgeliyaan oo si yaro aan qofku dareemin ayay isu dhexgeliyaan. haddii aad arkayso markaa saa usoo wadno halkaa haddii aad arkayso iminka haddii aan halkaasaa ugu daayo waxaad arkaysaa in ubaxyo yaryar oo khafiif ah ay kasoo dhex muuqanayaan muuqaalkeena. marka waa sida cross dissolvationka uu samaynayo oo wuxuu isku dhex qaldayaa labadii muuqaale isku xigay ayuu ayers kasoo dhex muujinaya isagoo midna si khafiifa u saaraya midna si khafiifa u soo gelinaya. marka kaasa la yidhaha cross dissolve. marka saasaa usoo gashanaysaa oo aad u isticmaalaysaa waana dhaadheereyn kartaa. oo haddii aan halkaa dul imaado transitionka waxaad arkaysaa in calaamad yar oo muxuu ahaayey rectangle oo dhinac laga jaraynayo muuqato. haddii aan kala qabtoon jiido saasaan u dheereyn karaa transitionkaygii, laakiin ma fiicna in transition saa u dheereerayso, waayo haddii kale muuqaalkiiba waxaa dhacaysa muuqaalkii horan weli dhammaanin in kii kale kasoo dhex muuqdo. sidaa imika ay noo tahay aad arkayso halkaa inooga muuqato programka. haddii aad arkayso waxaa iska dhex muuqda muuqaalkii hore aan weli la gaadhin iyo kii aan ku jirnay ayaa iska soo dhex muuqda si khafiif ah isaga soo dhex muuqda. marka haddii aad transitionka dheerayso wuxuu samaynaya inuu labadii muuqaal is dhex geliyo iyadoon weli kii kale la gaadhin. marka waxaad samaynaysaa saasaad usoo celinaysaa, saasaad usoo yaraynaysaa ilaa aad halkaa keento in yaroo fudud oo aanu qofkuna aad u dareemin kala go'i meesha ku jirayna ka saaraysa. marka waxaan samaynayaa saas aad u gashanaysaa
haddii aad doonayso inaad iska saarto waxaad mararka qaar baa waxa dhici karta transition aad u baahnaan inaad geliso oo aad iska bedeliso tiraahdo qaabka iska bedelaysa waxa weeye inaad transition ki doorato kadib aad isaga right click tiraahdo oo aad air clear tiraahdo ama isagoo sidiisa ugu jira inaad samayso inaad isaga doorato kadib aad delete keyboardkaaga taabato aad air iska saarto waxa kale oo doonayaan kuso transition kale oo deep to black la yiraahdo oo halka dambe muuqaalka laga geliyo ama muuqaalku markuu sii dhamaanayo la geliyo ayuu qofku ka sii baxay muuqaalku ama sii dhamaanayo marka waa kan deep to black haddii aan sida u soo jiido oo aan halkan keeno waxaad arkaysaa inuu xagga dambe ka bixiyo sii daayo aan sida u yareeyo aan halkan timeline ka keensado marka uu muuqaalku sii dhamaanayo haddii aad arkaysaan madow baa soo gelaya ama uu soo hadhoobaya marka maxay cadeynaysaa in wixii sii dhamaanayo ilaa marka u dambaysa uu shaashadu gebigeedu ay madow noqoto oo taawada madoobaatay qaabkaas loo isticmaalaa deep to black marka muuqaalkeena maanta waxa transitionist saas aad isticmaalaysaa qaabka loo soo gasho transition-kuna waa isku wada mid ama 3D motion isticmaal ama dissolve isticmaal transition dad soo gelinayso sidaas baa loo soo gelinayaa waa adiga iyo qanaacadaada iyo ka aad ku qanacday aad jeclaato muuqaalkaaga inaad ku isticmaasho marka halkaas cashirka noogu joogaya fadlan haddii aad channel ku cusub tahay subscribe saaro nagu soo biir like nagu dhiirigeli haddii casharka ka heshay la wadaag asxaabtaada sii share gare wixii faaleed qabtana commentiga hoose noogu reeb haddii aad su'aal qabtana insha Allah taala waxay iga soo weydiin doontaa telegram linkiga xagga hoose description-ka yaala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh